waxaa maanta soo gaaray magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar raashin ay bixisay hay'adda Bisha Cas ee Imaaraadka taasi oo waday isla markaana wakiilka xildhibaan Cabdiraxmaan Cismaan Shaad oo ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland waxaana raashinkan oo gaadhaya ku dhawaad 50 tan ku wareejiyay balasaabka gobolka Saraar Professor Ibrahim Xaaji Xasan Cali taasi oo isla saakana si rasmi ah u bilaabay qaybinteeda una kala diray ku dhawaad 6 degmo iyo 8 tuulo oo ay ka jiraan abaaro ba'an oo daba dheeraaday xooluhuna aad uga baxeen iyadoo ay dadkuna ka soo xaroonayaan miyiga kuna soo barakacayaan meelo badan oo ka tirsan gobolka Saraar xildhibaan Cabdiraxmaan Cismaan Shaad oo isagu ka hadlay madashii lagu kala dirayay raashinka ayaa ka dhawaajiyay in gobolkan yahay kan ugu daran abaaraha wuxuuna fariinada u diray qurbo joog oo aan iyagu kaalintii la filayay ka qaadan gurmadka abaaraha ee xukuumadda horkacayso iyo goob walba muhiinaya iyo tuulo kastaba annaku wixii naloo soo dhiibay maana dadkii cuni jiray minhin isaguna waa la mid waxaan idin keenay dadweynow wixii naloo ku soo kiin dhiibay ee dawladdu noogu soo kiin dhiibtay iyadoo diyaara ayaanu idin keenay oo dhan oo waxba ay ka maqnayn gudoomiyaha waxbarashada gobolka Saraar Salabaan Cali Cawad ayaa farta ku fiiqay in xukuumadani tahay tii ugu horeysay ee la tacaasha dadka abaaraha la tiicaya waxaan kaloo sheegaynaa berigii dawladii hore ina si aad barreeyay waxa loo jiray hees baa jirtay in kasto loo baaqo loo horseedo barwaaqo dad ay meel bugta wax kasto oo cadaalad iyo wanaag iyo sharaf la sameeyaba dad baan ku qancin oo iyaga xanuunkooda ay tahay ama dhibaatadooda tahay gudoomiye ku-xigeenka degmada Caynaba ahna kusimaha duqa degmada Abubakar Shida Xasan ayaa isna soo dhaweeyay gurmadka ay xukuumadda Soomaaliland wado dhanka kale waxa arrintan raashinka lagu qaybinayaa barbar socda hawlo biyo dhaamis taasi oo iyadana saaka loo kala diray dhamaanba degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Saraar walow ay hadda ku soo biirtay degmada Ceegaag oo iyadu ka dhawaajiyay wax la qaybsanayso gobolka Saraar wadoomeedna waxa halkaas ka hadlay balasaabka gobolka Saraar Ibrahim Xaaji Xasan Cali oo dadka u sheegay in raashinkan iyo biyahan la siinayo kaliya dadka aadka u liita uguna baaqay xukuumadda Soomaaliland inay u soo kordhiso caawimada gobolka maadaama uu yahay mid balaaran مسؤول جريان وكعسين وقيلنا وملا سي وريجيان جرايدك وحكو قريان dadka wax ku buuxinayaan marba soo hoos galayaan waa uun habaar dadka ku dhex jira marka runtii dadka baahidu ay ka hadlaysana waa u dul qaadanayna waxaan rajaynaynaa in hay'adaha wax bixinayaan iyo guddiga qaranka ee abaaruhu ay u soo kordhiyaan waxa la bixinayo iyagoo wadooda dadaalay runtii haddana dadaal badan sii muujiyo oo wixii wax dadka ku filan marka ay hayaan ay keenaan qoliyaha kale iyagu maaragtay noolka ama gudaafad kunaaxa iyagu haddii alla ka dhigo waxa weeye hadda waa tallaabadii hore lagu xakameynayay taan wadnaa si kastaba ha ahaatee maaha markii ugu horeysay xukuumadda Soomaaliland ee caawimo isdaba jooga soo gaarsiiso gobolka Saraar walaal xukuumaddu hoos u dhigtay qaybinta biyaha oo markii ugu horeysay soo gaaro gobolka oo dhammeyshan iyo $10,000 haddana ay ka dhigtay $10,000 balse ay dadka ku dhaqan gobolku si weyn u soo dhaweeyeen Maxamed Aadan Dirir Somali Channel Caynaba